أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. inta aan jikada ku jir iyada hawsha kale haysa soo xad gartama ama dharkaygii bay dhaqaysaa ama ilmihii bay u qabeynaysaa ama ma aragta hawl kale haysa inta taa haysa inaan u fadhiyo ma tan aan suugo tan waa tan wada cuni leeyahay ilmihii bay cunaya suuq waad wax ka soo gadid oo aad keentid talaabo walba wallahi ajir baad ka helaysaa gabadhu way kugu jeclaanaysaa ilmahaagii way kugu jeclaanayaan adigana shaaday ku noqonaysaa caafimaad waana akhlaaq wanaagsan guriga markaad keentid inaad gabadhi u diyaarisid wixii ajir jarto ilmiha u diyaarisid laga bilaabo cunitaankii ilaa ay qashinkii aad keent haddana inaad banaanka geysid aad reerka ka fogeysid intaasoo dhan ajir waay talaabo walba jannadan waa la shaqaystaa gacmo isdhaafa gacal ku jira weeyaan marka hawsha in la isla qabto shay aad muhiim u ah weeyaan marka يعني waxa laga yaabaa ragga qaarkii inay ugu dagaalaan oo ay yiraahdaan kayaaw wuxuu nagu diraayaa haweenka ku dirid maaha wallahi ku dirid maaha oo rasuulka gurigu ka shaqeyn jiray dharkiisu dhaqi jiray sariirtu gogli jiray gabadhu jikada ku caawin jiray kabiisu baalashi jiray dharkiisu toolan jiray gulisho ma reerku idin ku diraayaa reerku dirid ma aha reerku dirid maaha waxaan waa cibaado waa shay aad u wanaagsan gabdhaha la caawiyo gabdhaha la caawiyo aniga maxamed ahaan waqtiga aan dacwada ku jiro ama aan ku jiro ma aragtay wax barasho ama aan cibaado ku jiro maahane inta kale wallahi waqtiga aan aad u jecelahay ee aan marnaba ilaaweynin waa waqtiga reerkayga aan ka shaqeynayo weeyaan gabadhaan caawinayo khaasatan gelinka hore subaxii waxa ay xalay oo dhan bay gabadha soo jeedi ilmahaasi u soo jeedi xalay oo dhan bay mid wax ka bedelaysay midna nuujinaysay midna dhaqaysay midna babinaysay waxa soo dhan aniga miyaan ogaamay xalay oo dhan indha mugoodan jiifi subaxii baan soo kacay gabadhii markaan soo kacayay oo ilmihii ay ka seexseexdeen markaasay seexatay xaq miya ilaahay baa ku dhaartay rag yahow in gabadhii xalay oo dhan ku raaxaynaysay oo aabihin qaylida ka daaya hajiifee wixii dib aha oo dhan dhuuqaysay subaxii markay in yar seexatay inaad hadan intaad irid u garaacdid naawi quraacdii quraac maxaad u karin weysay hal yeew jiifta oo inaad ku qaylisid xaq ma u leedahay ilaahay baan kugu dhaarshay maxaa markaa korkaaga حتى الدين اسكدا حق دق عقلي سليم كان وحو كينيا gabadhii sida ihsaanka kugu sameysay in aad soo kacdid waliba shanqarta ay yareysid tartiib ah u soo socotid adiga sida xalay shanqarta kaaga yareysay jikada soo gashid dhaqdid wixii alaaba ajir jartid aad karisid diyaarisid ilmihii soo kicisid u cadaydid dhar u xidhid quraacdi ina siisid ilmihi iskuulka ama aad geysid ama dugsiga aad geysid hadana ilaahay oo fasaxayeen guriga ku ciyaaraan shaqadaadii aadid iyadana maxay sameynaysaa ma taqaanaa wallahi haweenka wax ihsaan loo galay ugu fiican yihiin markay aragto wixii inaad sida u diyaarisay waa marka hore meeshaas kal gacal iyo jacayl iyo duco ayaa horta ka iimaanaysa iyadana qadadii si fiican u diyaarinaysaa hawshii inta kale diyaarinaysaa waxaad maanta soo laabanaysaa adigoo xanaaqsan oo ay rag isku soo xanaaqdeen adigoo culeysida adigoo hammi iyo murugsida adigoo ma aragtay kacsan ayaad iimaanaysaa iyadana waxay diyaar u tahay irida inay kugu qaabisho inay ku dajiso culeyska inay ka qaado iyada qaadanaysa la soco gurigeena way ku sii habaysay tan waa tan rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi khadiija ay ku noolaayeen noloshaas raaxa laakiin nolol gabadhu la dhahayo wax dhaq wax kari wax habe wax ma aragtay maamul adigu gurigi wixii oo dhan ninkeena shaqo uu ka dhiganaya kisteere uu soo qabanaya maalinkii habeenkiina asxaab uu la soo sheekaysanaya ama halka ay kafeteriye u joogaya wallahi taa inaanay nolol ahayn ilaahayna raali ka ahayn tana guur تنا نولل تنا أجر تنا جنة جنة الدنيا قفن قالين جنة آخر قال مايو مخايضها يكفتيرية يميلها عاد ما أرتا وقت كل مسين اسكت دايو هل كان اللي ذكر باهن يهي قرية اللي ذكر باهن يهي
gurigan waa kan lidin weydiinayo weeyaan maalinka qiyaam ilaahay idin weydiinayo ubadka ilaahay idin weydiinayo xaaska ilaahay idin weydiinayo ma min abdin wa ku celceliya daa'iman xadiiskan ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قفك المسؤول لغدغي وبد لو ديبي خير لو ديبي او حدنا انا او سو dhimanaya maalinku dhimanaya isagoo amaanadii gudi waayay dayacay ka fogaaday wax u qaban waayay ana ka soo bixin noo yimaada illa harrama Allah alayhi aljanna iska xarimin jannada